munaasabadani ay xilka kula kala wareegayeen xogayihii hore ee degmada Togo Jaale Liibaan Maxamed Jibriil iyo xogayaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay degmadaasi Cabdilaahi Xasan Samaale oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu qabtay Geele Hotel ee magaalada Togo Jaale ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmadaasi Wajaale عقال سلادين هوين يقيبها كلا دوان أي بلشة مقالة وجاله مناسبتني أيها وحكا عليه حقيقي هراء دقمة توجه عليه حقيقي عزوه هذا الله سوى مقعابي كميت هاي تعاود ضاع عرفاء هوتيلك مرتاي كميت هاي runtii saddexdaa wadoomi jirin markii magaalada nala soo magacaabay maamulka degmada iyo gudiyada magaalada oo kaashanaya ayaa runtii hirgeliyay wadada 2 kiiloomitir ee quruxdeeda maanta aad arkaysaa maalintii xilka loo dhaarinayay ee xilka loo magacaabayay waxa martiriyada rafa oo aan baabuur hudul mari karin maanta cidda xafladda timid ee tii horena joogtay waxa walaalayaal idii sheegay hadalka ma badinayo inta halka fadhido qof fanaan iska dhalaynin ma jirto waxa weeyaan sunnaha استراتيجية Somaliland مدحوينها جمهورية وقردقي وحويان تاي نقص عناء استراتيجية وضع قبسك يهور مريضة اسكو تناسلك تاسي Somaliland كو أبتسطا مركا واحد بلشة رأيو توقو جعلا أبالان قاضية إنا كو شقاين دورو استراتيجية وقردقا قرن كان جمهورية Somaliland sidoo kale waxa munaasabadani ka hadlay qaar kamid ah uqaasha iyo waxgaradka degmadaasi xogayaha degmada laga bedelina aad uu maasiyo meel fiican uu soo gaarsiiyay Soomaaliland waxa ka rajeynaa halka ay hal ka si fiican uu gaarsiiyo Soomaaliland waa xumad firfircoon oo sidii guddiga horisaba ay sheegeen guddiga waxaan waqooyiga loo diray buuraan u wada hooynay ilaa 10 habeen aniga maanta waxa ii farxada waligay 25 sano wax mas'uul oo loo kala bedelo maanta uu koobo bash كريم على شيء مانتا سداي لوgu bilaabatay in hadda kadib 25 inta dambe inaan loo kala haano inta ay ka sii sareyso oo qabtay iyo halka ahaa taariikhda sheegi doonto sheegta cid walba laakiin haddaanu nahay odayaashii iyo shacabkuba ka horena waanu sii ducaynaynaa kan dambana waan soo dhaweynaynaa xogayaha dambana waanu ducaynaa ducuu mudan yahay oo waxa weeyaan xogayaha Wajaale ama xogayanimada ama mas'uuliyadduba tii ilaahay garabka qabto ayaa baraka leh sicirka loo kala wareejinayo labadaba waan hambalyeynaya kala bedelkuna waa sunnaha dowladnimo waxa weeyaan xogayihii hore waanu ducaynaynaa waxaanu ugu ducaynaynaa in meel khayr qabtay isagana la geeyo ugu dambeyntii waxa xafladda soo afmeeray gudoomiye ku-xigeenka waxay ka mid tahay qor isku dhiib bay ka mid tahay ay Soomaaliland ku soo calaamaashay ayay ka mid tahay waxaan halkan aan ku sii soo bootiganaa maanta xogayihii hore Liibaan Maxamed Jibriil saaxiibkay waxaan ugu hambalyeeynaya sida quruxda badan leh ee magaranaysaa uu soo magaranaysaa isaguna hawlahaasi uga qayb qaatay waxa aynu arkanay ee horumarka aynu ka sheekay aynu magaranaysaa ka hadalna waxa weeye waa horumarkii uu ku carbiyay dadka madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo aynu ka warqabno inuu hoggaan inoo soo xulay imikana mujaahid dalkana abaal weyn ku leh إن شاء الله تعالى إسقنا ما قرنا سأرنو كور والقبين إنه صباحيو مجاهد موسى بيحي عبدي ولكن ليبان مددي وحلك هاي وحي وقف صومي دقمة انتو هاي وقف صومي وانا قوم هندقنا وحي لنانا إلهي إذمكي حوغيها عصبها لها كسيدة قاتشن دونا كلي sida saaxiibada diiga horeeyay hal u yiraahdeen Soomaali waa nin muddo badan soo shaqeeyay waa nin hawlkara Cabdirashiid Salmaan Muuse Somali Cable TV magaalada Togo Jaale